السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن داوديال ميل باجوكتان يسي ودو مقالكيغا يديسو غاريا بكسو دوادا qodobada warka Africa Cable TV xaruntiisa dhexe ee magaalada Jowhar. warka waxa idin la socodsiinaya hadii ay baweyno uu ka raali noqdo anigoo ah Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Qalfa. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo lacag gaarsiiyay dhalinyaro ka diiwaan gashan ciidamada xoogga dalka si ay ugu ciidaan. madaxweyne ku-xigeenka Galmudug oo maanta dhagax dhigay xarun cusub ay yeelanayso baarlamaanka Galmudug. tartanka Quraan akhriska oo si habsami leh uga soconaya idaacadda City FM raadiyaha magaalada Jowhar. dagaal xooggan oo ka soconaya deegaano hoostaga Maxaas ee gobolka Hiiraan. amniga Soomaaliya oo mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya ugu baaqday hubka lagu ilaaliyo in 14 cisho ay ku soo diiwaan galiyaan xarunta CID-da. maxkamadda ciidamada qalabka sida oo soo gabagabaysay dacwad ciqaabeedkii loo haystay ragii lagu eedeeyay in ay dileen wasiirka howlaha guud iyo guriyeenta Soomaaliya Cabbaas Siraaji. siyaasiyiin iyo waxgarad ku nool magaalada Gaalkacyo oo eedayn dusha kaga tuuray ciidamada Itoobiya kuna eedeeyay dilalka loo geysto shacabka Soomaaliyeed ay u geystaan ciidamada EU Police.